noloshu waa easy. mararka qaarkood waxaynu dareemnaa inay naga soo wada xirmeen dhammaan albaabada rajada. waxaynu dareemnaa inuu wakhtigu naciilay. waxaynu fadhiisanaa derbiyada qoomamaynta iyo quusashada. laakiin waaqaca sidaas waa uu ka duwan yahay. markaad u fiirsato Keith Williams, waxaynu dhihi karnaa inuu yahay mid soo maray nolosha meesha ugu hoosaysa. nooc walba oo ka mid ah daraakiska ayuu soo dhadhamiyey. waxa uu jeelka ku qaatay wakhtigiisa inta ugu badan. waxaa la xiray tiro 7 jeer ah. waxa uu aaminay inuu nolosha uu ka dhacay. waxa uu qaatay boor ay ku qoran tahay waxaa leeyahay cod macaan. waxaan ahaan jiray wariyo ilaa ay nolosha iga ciishay. intaas kadib waxaa arkay nin sawir qaado ah. waa uuna wareystay ilaa uu kala cajabay codkiisa aad u macaan. waxa uu ka duubay fiidiyo. maalmo kadib fiidiyogii ayaa aad ugu gadmay suuqa. waxuuna muuqaalkaasi gaaray shirkadihii ugu waaweynaa ee gudaha dalka Maraykanka. waxaana soo dalbaday shirkadihii ugu waaweynaa ayagoo u soo bandhigaya waxyaabo badan ilaa uu isaga u wareeray midii uu dooran lahaa. shalay waxa uu ahaa mid ay ka muuqato diif iyo daal, balse maanta waxaa soo dhoweyntiisa ku tartamaya shirkadihii ugu waaweynaa ee gudaha dalka Maraykanka. dabcan sheekooyinka noocaani oo kale ah uma koobna Ted oo keliya, balse waxaa jira kuwa la mid ah. kanina waa muuqaal aynu ku eegi doonno qaar ka mid ah guuldarrooyinka ugu caansan marka laga sheekaynayo sheekooyinka guusha. nolosha waa sidii labada gelin ee maalintii. gelin aad faraxsan tahay iyo gelin aad murugaysan tahay. mar aad wax haysato iyo mar ay gacantaada maran tahay. mar aad caafimaad haysato iyo mar aad xanuunsan tahay. Nelson Mandela waxa uu leeyahay noloshani inaad ku fayso oo shilmayso, wajikabaxana la kulmayso, sidoo kalena kala kulmayso waxyaabo badan aadan jeclaysanaynin. waa wax iska caadi ah oo sugan, laakiin waxa keliya ee lagu kala duwan yahay ayaa ah inaad fadhiiso halkii aad kuftay iyo inaad boorka iska jafto oo aad kacdo aadna u diyaargarowdo waxyaabaha hortaada jira. bal ka waran sidee ama qaab noocee ah ayuu dareenkaaga noqon lahaa haddii aad kulansato xaaladahani oo dhammi oo mugdiga ah. waxa uu in badan u fashilmay dhammaan imtixaaniyadii iskoolka iyo kuwa jaamacadeedba. 24 qof oo isaga ka mid yahay ayaa shaqo ka dalbaday maqaaxida KFC. 23 ka mid ah ayaa la aqbalay, halka kan keliya ee laga soo diidayna uu isaga ahaa. dabcan maahan intaas oo keliya. sidoo kale Jack Ma asagii 4 qof ayaa dalbadeen shaqo askarinimo. 4 ka mid ah waa la aqbalay, haddana mar kale ayuu isaga noqday qofka keliya ee laga soo diiday. waxa uu wax ka badan tiro 10 jeer ah uu waxbarasho ka dalbaday jaamacadda Harvard, laakiin mar kale ayaa laga soo diiday. laakiin waqti xaadirkan Jack Ma ayaa wax ay jaamacadaha Harvard iyo kuwo kaleba ka dalbanayaan inuu u soo jeediyo khudbadooyin dhiirigelin ah. isaga waa Jack Ma, waana mid ka mid ah milyaneerada ugu taajirsan dunida. hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa inay gaarto 40 bilyan. waana milkiilaha shirkadda ugu weyn ee wax ku iibsa online-ka ee Alibaba. sidoo kale bal eeg guushii Michael Jordan iyo sidii ugu dhabar adeegay hadafkiisa. waxa uu yidhi Michael Jordan asagoo ka hadlayo hayaankiisii nolosha: in badan baan ku fashilmay nolosha adduunyo, laakiin hadafkayga iyo yoolkaygu waxay ahaayeen mar weliba kuwa ii muuqda. maantadani aan noolnahay waxaynu ku dhex noolnahay qarni nolosha adduunyo lagu jaangooyo maado. bal eeg, haddaad sabool tahay ama guulaysta ama magac lahayn, waxaad arki doontaa inaysan cidla dhoori doonin shakhsiyaddaada iyo qof ahaantaadaba. laakiin haddaad tahay shakhsi hanti u saaxiib ah ama magac iyo xirfad ku suman, waxaad arki doontaa iyadoo dadka oo dhammi u sacabtumayaan. waxaa jirta oraha tiraahda wax walba oo nagaada way miro dhalaan. markaad u fiirsato sheekadani, waxaa jirtay sheeko aan ka aqriyay buug. laga yaabee inaad sheekadani aad adiguba u aragtay qayb ka mid ah social mediaha. waxaana timinayay nin oday ahaa. waxa uuna yidhi waxaan fadhiyey geed hoostiisa. wax ayna hal mar shaydu qabatay quraansho ama quraanjo. quraanshadaasina waxay isku dayaysay inay fuusho geedka, laakiin taasi waxay ahayd mid aad u adag. laakiin quraanjadu waxay u muuqatay midaan isdhiibayn, waa ayna kuna noqotay ilaa dhowr jeer, laakiinse ugu dambayntii waxay ku guulaysatay inay fuusho geedka. haddaba waa su'aale, quraanshadu ma ku guulaysan lahayd inay fuusho geedka haddiiba markii koowaad ay soo dhacaysay ay isdhiibi lahayd? jawaabtu waa maya. waxayna noqotay sheekadaasi sheeko xiise badan reebtay. xiisaha ay leedahay sheekadaasina waxay ahayd quraanjadu inaysan ka quusan, ayna ka caajisin dhowrkii
halkii mar ay ku guuldareystay inay geedka fuusho. Si kastaba, sheekadu waxayna bartay 3 shay oo guuldhan saldhig u ah, kuwaasi oo ah go'aan, dulqaad iyo joogtayn. Heerka joogtaynta iyo ku noqnoqoshada waa wax ka dhiga dadka guulaysta oo u sahlay gaaridda guusha, sidoo kalena ka dhigay kuwa ka duwan dadyow kale. Waxaa la yidhi dadyowga dul saaran adduunkan guudkiisa inay jecel yihiin dhadhanka guusha, haddana way dhib badan tahay u adkaysashada dacarta guuldarradu. Isweydii su'aasha ah, imise jeer ayaa joojisay isku dayga kadib markii aad dhowr jeer guuldaraystay? Himilooyinkaada intay doonaan hala ekaadaane, waxaad ogaataa in waddada guusha ay kaaga horeeyaan qodxo badan iyo caqabado. Taasina waa qayb ka mid ah nolosha. Haddaba, ayadoo sidaas ah, waa inaad u sahay qaadataa sidii aad u gaari lahayd yoolkaaga. Tanna waa muhiim inaad ogaataa, waana inaad wanaajisaa xiriirka kala dhexeeya adiga iyo Rabbigaaga. Ugu dambaynna, waxaa idin leeyahay jaalayaal, haddaysan maanta maalintaada ahayn, beri bay noqonaysaaye ha is dhiibin.